Assalaamu calaykum. Jimco wanaagsan. Ku soo dhowaada qaybtii labaad ee taariikh nololeedkii Maxamed Mursi. Si ay noogu fududaato fahanka taariikh nololeedkii Maxamed Mursi, waa inaan baranaa saaxiibadiisii ay dhib iyo dheefba wadaageen, isku fikirka ahaayeen oo ay muddada soo wada shaqaynayeen. Akhwaanul Muslimiinta Masar waa urur Muslim Sunni ah una taagan isbeddel. Waxaa ururkan Masar ku aasaasay Macallim Xasan al-Banna sanadkii 1928. Sheekh Xasan Axmed Cabduraxmaan Maxamed al-Banna wuxuu ahaa macallim iyo imaam masjid. Waxaa lagu xasuustaa aasaasidii Akhwaanul Muslimiinta Masar. Waxbaridii al-Banna waxay ku faaftay dalka Masar, waxayna saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqyo muslimiina oo kala duwan, laga soo bilaabo ururo samafaleed ilaa ururo siyaasadeed oo aan isku magacyo ahayn. Tallaabadii ugu horreysay oo ay Akhwaanul Muslimiintu sameeyeen waxay ahayd diin faafin, wacdinta muslimiinta iyo waxbaridda dadka aan aqoonta lahayn. Waxay dhiseen isbitaallo iyo xarumo ganacsi. Markii ay bulshada wax badan u qabteenna waxay goor dambe ku soo biireen fagaaraha siyaasadda. Dhaqdhaqaaqii ugu horreeyayna waxay ku sheegeen inay doonayaan aasaasidda maamul shareecada Islaamka ku dhaqma. Waxaa xilliga caan baxday halku-dhaggii ahaa xalku waa Islaamka. Waxa Akhwaanul Muslimiinka aad u caawinaya ma aysan ahayn lacag ay dowlado ku kabayeen. Waxay miisaaniyadoodu ku tiirsaneyd jeebka dadka Masaarida ah oo si iskood ah tabarucaadyo lacageed ku taageeri jiray, iyagoo mid fikradeedna la garab taagnaa. Wuxuu ururku si weyn uga soo qayb qaatay kacdoonnadii Masar ka dhacay 1948, 1954, 1965 iyo 2013. Ururka Akhwaanka oo muddo Masar mamnuuc ka ahaa markii ugu horreysay ee ay siyaasadda u tartameen waxay ahayd 1980. Waxay ka qayb galeen doorashooyinkii 1984 iyo 1987 ee Masar ka dhacay. Sanadkii 2000 waxay noqdeen mucaaradkii ugu weynaa dalka Masar. Akhwaanul Muslimiinta Masar waxay soo mareen marxalado kala duwan. Intii uu hana qaadayna Maxamed Mursi wuxuu xubin ka ahaa ururkaas. Xaaladihii kala duwanaa ee uu soo marayna waa uu ka soo qayb qaatay samata bixinta iyo sii wadidda qorshayaashii ururka si yoolkiisii loo gaadho. 2011 Maxamed Mursi xilligii kacdoonku Masar ka dhacayay wuxuu ururka u ahaa hogaamiye, isagoo u bixiyay magaca Xisbiga Cadaaladda iyo Sinaanta. Doorashadii xilliga dalka Masar ka dhacday wuxuu ururku ku guuleystay kala badh kuraasta baarlamaanka Masar. Mursi doorashadii madaxweynenimo sanadkii 2012 ayuu ku guuleystay, wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horreeyay uguna dambeeyay Masar ee si xor ah loo soo doorto. Maalmihii bilowga xukunkiisa, madaxweyne Mursi waxay isla keeni waayeen wada shaqayntii mas'uuliyiinta reer galbeedka u joogtay Masar, waxayna u arkeen khatar ku soo fool leh. Inkastoo Maxamed Mursi iska dhiga tiray digniino uga yimid dad kala duwan kuna aadan in inta uu saldhiganayo uu siyaasaddiisa wax ka beddelo, wuxuu ku adkaystay in hadalkiisu uu cad yahay. Arrinta reer galbeedka iyo madaxweyne Mursi isla keeni waayeen waxay ahayd mowqifkiisa ku aadan dunida reer galbeedka iyo Yuhuudda. Markii reer galbeedku qiimeeyeen heerka uu ka taagan yahay mowqifkiisa islaam jacaylka, oo ay ogaadeen in lacag iyo cabsigelin midna aan lagu hodi karin, dib ayay uga gurteen, waxayna bilaabeen dejinta qorshihii ay xukunka uga qaadi lahaayeen. Arrinta madaxweyne Mursi xilliga ka hoos baxday waxay ahayd in ciidamada Masar ee uu u haystay quwad Islaamku leeyahay ay badiba saraakiishooda ugu sarreysay ahaayeen ay reer galbeedku rabaayadaysteen. Waxaa xusid mudan in dowladda Maraykanku waddanka Masar ku kabto kharashka ugu badan ee dowladda Maraykanku ku kabto ammaanka dalalka dibadda ah marka laga reebo Israa'iil. Waa run, Israa'iil waxay siiyaan qondo miisaaniyadeed oo ay si wacan ugu sugto amniga gudaha dalkeeda, laakiin miisaaniyadda ciidanka Masar la siiyaa waa hadhaadhi. Sida ayga rabaayadaysan ee kabaqaadka ah loo siiyo cuntada soo hadha si uu kabaha uga daba qaado mulkiilihiisa, yacni si fiican ugu adeego. Lacagta Maraykanku ku kabo ciidamada Masar waa un sidaa. Ma laga yaabaa in ay mulkiilihiisa uu ku afceliyo? Xaqiiqdii waa maya, balse isagoo dulaysan oo carabka laadlaadinaya ayuu wajahaa hadba hawsha loo diro. Badi saraakiisha ciidamada Masar waa un sidaa. Lagama yaabo inay ku afceliyaan mulkiilahooda.
Maraykanka oo waxay yaqaanaan inuu yahay kan lacagta fiican ku kaba, waxaa la baray keliya inay wax ka sugaan. Tani waa sababta ka dambaysa fadhiidnimada ciidamada Masar. Sargaal fadhiida marnaba ma soo saari karo askari hawlkar ah, waayo waxay askartu ku shaqaysaa waa amar iyo fulin oo keliya. Askarigu kama fikiro dooqiisa iyo doorashadiisa, ee wuxuu qabtaa oo keliya wixii la faro. Ciidamada Masar waxay xayndaab ugu jiraan Yuhuudda iyo reer galbeedka oo u heelan curyaamintooda iyo inaysan ka toosin hurdada dheer ee ay ku jiraan, si aysan wax ugu qaban walaalahooda dhibban ee maalin iyo habeenba la gumaadayo waa Falastiiniyiinta. Ujeeddada ciidamada Masar sidaa loogu gelayo waa ilaalinta ammaanka Israa'iil, waayo waxaan ognahay in Masar waagii hore ahayd quwad dunida muslimiintu ku xisaabtanto. Waxay ahaayeen quwaddii jabisay Tataarkii loo taag waayey. Waxay lahaan jireen ciidamadii Yuhuudda jiifka u diiday intii uu socday dagaalkii Yom Kippur ama dagaalkii Rabadaanta. Si kasta ha ahaatee, qarannimada Yuhuudda iyo curyaaminta ciidamada Masar ama guud ahaan Masaarida waa laba arrimood oo isku xidhan. Tani waxay ahayd dhabaha loo maray riditaankii dowladdii shacabka Masar sida xaqa ah u soo doorteen. 2013 waxaa mar kale inqilaab xukunka Masar kula wareegay ciidamada. Xukunkuna wuxuu gacanta u galay nidaam militari oo adag. Ciidamadu waxay ku doodayeen inay ka hortageen in taladu faraha ka baxdo, maadaama mudaharaadyo ay hareeyeen Masar xilligaa. Ururka Akhwaanul Muslimiin waxaa Masar laga mamnuucay 2013 markii madaxweyne Sisi uu xukunka ka tuuray madaxweyne Maxamed Mursi. Xilligaa wixii ka dambeeyeyna Sisi wuxuu korka kala socday tallaabooyinka adag iyo gacanta birta ah ee lagu hayay kooxaha siyaasadoodu furfuran tahay iyo Islaamiyiinta mucaaradka ku ah Sisi, isagoo xabsiga dhigay 10,000 kun oo ka mid ah Akhwaanul Muslimiinta Masar iyo weliba hoggaanka ururkaas. Waxaana xabsiga loo taxaabay Maxamed Mursi isagoo eedeymo abaabul shacab iyo argagixisanimo lagu eedeeyey. Maxamed Mursi dhowr jeer ayaa maxkamad la soo taagay oo lagu xukumay xitaa dil toogasho, laakiin waxaa mar kale dib loo furay dacwadiisa. Geeridii Maxamed Mursi wuxuu ku jiray xabsi tan iyo markii la xiray. Xilligaas kadib waxaa bilowday howlgal ka dhan ahaa taageerayaashiisii Akhwaanka. 17 Juun 2019 Maxamed Mursi wuxuu ku dhex geeriyooday fadhi ay ka socotay maxkamadayntiisu. Saxaafadda maxalliga ah oo xilliga goobjoog ahayd ayaa xaqiijisay in Mursi uu ku dhex suuxay maxkamadda daqiiqado kadibna uu geeriyooday. Dacwadda maalinkii uu geeriyooday la dhageysanayay waxay ku saabsanayd xiriirkii uu la lahaa ururka Falastiiniyiinta ee Xamaas. Wiilkiisa ugu yar Cabdulaahi ayaa horey u sheegay inuu si joogto ah uga dacwoon jiray xaaladda caafimaadka ee aabihiis iyo daaweyn la'aan. Wuxuu bishii Oktoobar ee sanadkii hore wakaaladda wararka ee AP u sheegay in aabihiis si joogto ah loogu hayay xabsi cidla ah, loona diiday daawo oo u qaato xanuuno halis ah oo uu wajahayay sida dhiig-kar iyo cudurka macaanka. 5 bilood ka hor, Cabdulaahi wuxuu wargeyska Washington Post u sheegay digniin ah in maamulka Masar ay ka go'an tahay in arrintaas ay si ula kac ah u sameeyeen, maadaama ay doonayeen inay arkaan inuu si iskiisa iskaga dhinto sida ugu dhaqsaha badan. Marxuun Maxamed Mursi wuxuu ku geeriyooday da'da 67 jir, waxaana lagu aasay xaafadda Madiinat Nasri ee bariga magaalada Qaahira. Dowladda Masar ee xilligan waa ay diiday baarid lagu sameeyo meydkiisa, waxaase aqoon-yahano badan oo muslimiin ahi qabaan in la sumeeyey oo dilkani ahaa mid ku talagal loo sameeyey. Madax badan ayaana cambaaraysay kana tacsiyeysay geerida Mursi, iyagoo ku tilmaamay dil ula kac loo geystay. Waxaa madaxdaas ka mid ah madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. Waxaa kale oo xusid mudan in Sisi, madaxweynaha Masar ee xilligan, yahay khiyaanoole shisheeye kalkaal ah oo keliya awaamiirta reer galbeedka ku shaqeeya, damiir laawe aan dadnimo lahayn oo dhaldhalaalka adduun hoday. Ugu dambeyntii, Allah u naxariisto marxuunka, jannadii firdawsana ka waraabiyo, annagana Allah naga dhigo kuwo kaga dayda wanaagiisii, diin jacaylkiisii, daacadnimadiisii iyo gaala nacaybkiisii. Aamiin. Taariikhdii marxuunkana intaas ayay nooga dhammaatay, waxaana maalinta Axadda ah aanu sii ambaqaadi doonaa taxanaha sirdoon qaybtiisii 5 oo aan ku soo qaadan doono sirdoonka Kenya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.